carcaraya waxaad moodaa inay balaaya dhacday marka madaxweynuhu maalintaa uu yimaado dhaqaale ahaan haddii laga eego dhaqaalaha waxaa jira concept la yidhaahdo opportunity cost maalintaa dadka xanibayaan iyo dhaqaalaha eeg markaad adigu dhaqaalaha waxa laga eegaa subaxdii markaad shaqo tegayso aad xafiiskaaga ku socoto waxaad u socotaa wax soo saar minute kastoo markaa kaa khasaaraa wax soo saarkaagii maalintaas uu ka go'an yahay waxaa laga yaabaa inay 2 saacadood 3 saacadood ama saacad ay waddadu xidhnaato haddii 5,000 oo qof ay waddada maalintaa markaa saacaddaa ku xanibnaayeen 5,000 oo qof saacaddaa productivity-goodii wax soo saarkoodii waddanka khasaaray ku tahay waddamada waaweyn markuu intuu roobdo meelahan waaweyn ee baabuurtu marto ay xidhanto amaba inta shil ka dhaco waddadaasi xidhanto waxa dee wararka oo dhan laga sii daayaa oo warbixino lagu daabacaa maalintaa intaasoo khasaaro dhaqaalaaba dhacay khasaaraha dhaqaalee dhacay maaha lacag luntay maaha daaro durduray maaha daaro burburay waa dadkan waddada iska dhex taagnaa 5 saacadood wixii ay qaban lahaayeen dee waa khasaare sow maaha innaga laakiin khasaaraba waxaynu u naqaanaa markay balaaya dhacdo ee la isku jabo ee guryo dumaan ayaaba laga yaabaa in cidi ka hadhadasho oo dawladdu ay tiraahdo khasaara dhacay laakiin waxaasoo dhan inaynaan fahamsanaynba baa laga yaabaa adiga waqtigaagu inuu lacag oo wax soo saar yahay oo aad wax lumisay marka halkaa waxaad ka garanaysaa markaynu garan kari weyne warbal protocolka madaxweynenimada ilan TCR barra lama inaan dhalanine bal aan wax ka bedelo oo wixii hore wax ka duwan aynu keenno oo madaxweynuhu muxuu uga baahan yahay in 10 gaari ama 30 gaari ay daba galaan 10 wasiir ee madaxweynaha daba taagan haddii uu meel koob shaaha ka soo cabayo hadduu geeliisa u caana doonanayo iyo taliyayaashan iyo waxaan wada daba yaacaya wax soo saarkoodii iyo shaqadoodii iyo waxoodii meeday sabab kale maaha dadkani waxaan la sameeyay bay arkeen mabay fadhiisano intii fikireen may odhanin war waxaan muxuu faa'iido inoo leeyay dalka muxuu faa'iido u leeyay dhaqaalaha muxuu dhibaato u leeyay muxuu faa'iido u leeyay marka halkaas oo kaliya kaaga filan inta aynu curin leenahay ama maskaxdeenu ay leedahay wax soo saar isbedel inaynu samayno ku salaysan meelaha kale ee madaxda laga eego waxa kamid ah madaxdu qaabka ay dadkooda ula xidhiidhaan daacadnimadooda ummad markaad hogaaminayso duruufaha adag baa ummadaasi soo waajahaya wax waliba ma aha dariiqa aynu aragnay ee bilaa qodaxda ah ma aha intaad hoolkan soo gashayna dabadeetana ka baxday intaasna aanad wax dhibaato arag mushkilado waaweyn baa ummadaada soo waajahaya intaad maamulaysa aad madaxda u tahay sidee baad ula communicate garayseed ummadaada mushkiladahaasi ugu sheegtaa intee in leeg bay daacadnimo kugu jirtaa inaad mushkiladahaasi runta uga sheegto waxa kaliya aad arkaysaa markaad eegtay inaga madaxdeena waxay jecel yihiin inay dadka misleer gareeyaan haddaad eegto hal tusaale ilaa madaxweynayaasheenii kala dambeeyay mid waliba uu safraayo safar dabadda buu tagaa wadamay tagaan way soo noqdaan bal idinkaan idin dhiibayaa ee caawa qof walba waxaad u qaadataa tusaale oo baadho hadallada yidhaahdaan ay noo sheegaan kulligood wada dhagaysta haddaa 2-3 nuxura ka heshaan markaasi dabadeetana aynu eegno kulligood waxay la soo wada noqdaan si fiican baa naloo soo dhaweeyey waa in yaroo siiba qoran ma ogtahay marbar baan siraynamada saxaafadda maxaa lu gooyey waayo dee intay odhanayaan wuu sii garanaya si fiican baa naloo soo dhaweeyey waxaan lagu qaabilay si wanaagsan arrimaha labada dal baanu ka wada hadalnay si fiican bay u dhammaadeen alxamdulilah xaaladdeenu meel fiican bay maraysaa waa wada fake soo maa wax sabistan soo aad taaban karto meel fiicana heshiis baanu gallo waxaasaanu kala iibsanaynaa milix bay Itoobiya naga qaadanaysaa intaasoo tan bay sanadkii naga qaadanaysaa sidaa ay saasaanu ku heshiin waddankaasaanu u tagnay oo waxaasaanu ku heshiin adduunku saasay sameeyaan markay madaxdoodu meel tagto haddaanay dadka waxay u sheegaan oo rasmi ahaynin dee guryahooda iska galaane buuq ma samaystaan innaga buuqay nagu dileenba intay 2 saacadood wadda ku taagaan oo carruurta iskuulada ka fasaxaan weliba dee burca dhibtaa Hargeysa lama qabto Hargeysa dhibtay qabto waxa kamid ah maalmaha qaar baa xitaa la yiraahdaa iskuulada aan fasaxno
markaasaa dabadeetana carruurta la idhahdaa waddooyinka kaalaya madaxweynihii baa soo noqonaya marmar baan anu idhaahdaa maalmaha qaar malaa markan dee jawiga Hargeysa eego madaxweynuhu malaa maanta aqoonsigii baan sidaabuu odhanaya waaba sidii uun waaba intii uun waaba si fiican baa naloo soo dhaweeyey marka taasi waxay ku muujinaysaa daacad darro ma xuma haddii inta runta laynoo sheega la idhaha war dhibtaas ayna haysataa arrinteenu halkaa iyo halkaasay ka adag tahay aqoon-yahankii iyo dadkii waxgaradka ahaayow talaynu u baahannay sidaynu halkaa uga baxnaa maxaynu ka yeelaa dee waad fikiraysaa seexan maysid laakiin irbadan suuxisada ahee baasa laynala daba taagay ee ilaa 90kii taagan waa 28 sano waxaan dhageystay ilaahay ha u naxariistay wasiirkii arrimaha dabadda ee waqtigii madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya ee Cabdiraxmaan Tuur ayaa Ingiriiska tagay anigu markaa waan yaraa khayriyada Hargeysa dadkii dhageysanayay baa kamid ahaa dadkiiba uu warramaya wuxuu leeyahay xaaladdeeni meel fiican bay maraysaa wuu soo waday dadkii dhagahay wada taagayaan ma ogtahay maanta Soomaaliland internetka la geliyay buu dadkii way isla oogsaday waayo internetka lama aqoon ma ogtay wuu soo fahmay wax yaroonay dadka kale markaa warkiisa haynin maanta internetkii waxay noo bedelay ma taqaanaa roog casbaana loo dhigay hadda waa ka halkan inoo yaala wallaahi inaanan farqi u dhaxeeya wasiirka arrimaha dabadda Somaliland ee 29kii intuu London tagay ayuu dabadeetana soo noqdo dhagahaygaasaan ku dhageysanayo wuxuu yiri maanta warbixintiisa ugu weyneed waxay ahayd in Somaliland internetka la geliyay faratoon maanta hadduu yimaado warbixintiisa ugu weyn safarkii u dambeeyay tagay Djibouti buu ahaa warbixintiisii ugu weyneed waxay ahayd dhageysta caawa bifadliku waxay ahayd si fiican baa naloo soo dhaweeyay oo roog casbaana loo dhigay odayada hadduu saarhayo de malaa saxasaanka saar iyo waxbaa ku jireen odayada hadduu saarhayo inaga Hargeysa wada roogaga cascas u dhigay shaqadaynu u dirsanay ay noo doonaan marka horta halkaasina waa meel laga eego weey waxaas oo dhan markaad eegto integrity-ga markaad eegto qofku sideebu wixiisa iyo waxa dadka u kala ilaaliyaa maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay ha u naxariistee hal wuxuu ku wanaagsanaa doonayna nadiin sheego 2000 iyo markii 9kii 2009kii ma 1999kii maladaadaan bar iska jaraya 1999kii anoo u shaqeeya barakaad kambanigii loo oran jiray ayaa waxaan ahaa salesman simikaadadaan iibi jiray simikaadku barigaasi ilaa hela khatar bay ahayd internetka la galay oo kale waxa qofka mobile qaata waxa la oran jiray inanka mobile si tawarkiisu habeenka heer sare waa marka ina xaaji ibraahim cigaal marka mobile-ku waxa kaarka waxa lagu qaadan jiray $50 deposit-na qofka waa laga qaadi jiray $80 xilligaana $80 waxay ahaayeen xoolada meelkooda dadkuna ma shaqeyn jirin ina xaaji ibraahim cigaal baa ii timid oo igu tiri waxaan doonayaa sim card waxaan ku yiri waxa laga doonayaa $50 iyo $30 konton kaarka iyo 30 deposit waxay igu tiri miyaanad garanaynin ina xaaji ibraahim cigaal baan waxaan ku yiri walaalku ma garanayeen laakiin de madaxtooyada waan wada shaqeynaa warqad ka soo qoro haddii warqad ku soo qoraan anagu horaan ka siinana way bay tiro wayga tagtay madaxtooyada tagtay qofku waxa wanaagsan u sameeyo waa loo qiraa wallaahi waa loo soo diiday warqadii waxa lagu yiri magaca dawladnimada u isticmaali maysid dan shakhsiya waxa qasab ku noqotay ina xaaji ibraahim cigaal in $80 ee qof kasta oo kala bixinayay ay bixiso kuwa maanta jooga magacyo loo bixiyaa waxba ka sheegi maayo laakiin tiise wuxuu maxamed xaaji ibraahim cigaal ay tahay inaynu ku xasuusano inuu edeb u kala sameeyay caruurtiisii iyo dawladnimada qof ina xaaji ibraahim cigaal oo maanta guri dhistay ma soo helaysa
marwadiisii kaltuun waxay ku jirtaa guri kira aanu si fiican baan kaltuun u aqaana taasi waxay kuu sheegaysaa dhaqankii siyaasi khaladaad kala halade taariikhdu qofka way judge garaynaysaa waxa laga yaabaa qofku inuu meelo badan iska taagi karo laakiin tiisa qodobka 10 out of 10 buu ku haystaa aniga xaggayga waayo waan u soo joogay isagoo inantiisii u soo diiday oo la soo celiyay agaasimayaasha maanta madaxtooyadeena fadhiya taa inaanay samayn karin idina waa ogtiin anna waa anagu isu sheegi mayno inay casarka sii cararayaan haddii la yidhaahdo inay hebel baa soo socda waa is leeyihiin shaqadaaduba khatar bay gelaysaa haddaad maya tiraa xitaa haddii la yidhahdo gidaarkaas ma la jiili karaa ها هدانو اسكو أورانين ويسوني ملا شقة هذا خطر جلد ومركز ضدنمادو دمتي وقفكو إنه شقة يرون إلى عشرة واحد كستون ورشي كلا أوران أي كلويناتو أي أمدو سدا سنغطا مركز إنتجرتيجا قفكو سيديبو وحيسة يدركيسة يشقديسة يدولة نمدا إلا المسقماس وقول عجل حدون ما هيك أودا وبدن مسقماس وقول مركز حاجة أصلا رناهانتي مركز دكتي إنتجرتيجا ما ده حدا وحيابها على جاهز موديلسكا dhaqaale ma doonayeen ku dheeraado taa idinka marka waxaas inta eegtaan madaxweynaheena waa u ducaynaa Allaha barakeeye la eega integrity-ga eega communication-ka eega ya accountability-ga eega waxaas hadii ay boqolkiiba idin soo baxaan waa ma sha Allah Ilaahay roob ay noogu daro laakiin hadii noo soo bixi weydo boqolkiiba de waa inaan oran waa inaan isweydiino dhana maxay noo hor fadhiyaa marka ilaa kii ugu mudnaa in hogaamin lahaa maahe adduunka models badan oo dhaqaale oo kala duwan baa jira inagu model gaar ah oo aynu maanta isticmaalaa ma jirto modeliska ugu waaweyn ee la isticmaalo ee maanta dunida caanka ah waa modelka la yiraahdo liberal economy systemka ama habka dhaqaale ee maanta reer galbeedku inta ay isticmaalaan ee capitalismka iyo waxyaabaha la xiriira اللي ليه سوق واحر أما بحر معها دولة إنتين لك بدقالها معمولة سامين إنتين لك بكوي يلانا سا دت كسده وعشورة سا عشور تمحيكو صلاين سا مركل ليه موديلس كدقالة كوا ليه كوا سا كمدا مركل موديل بدن بچرة موديل كا ليبرال كا بچرة كي كوميونيزم كيو محن كراد عيا چرة سوشيال ديمقراط سيستم بچرة systemadaas oo dhan inaga waxayna waa iska ala wadeen system aan anagu maanta soo dhan kara system kaas ay isticmaashaan maalin afka waxaynu kan dhaanaa suuqeenu waa xor oo waxaynu isticmaalaa nidaam liberal oo capitalist oo kale ku dhownahay maalinta xigta waxaad arkaysaa waxaas hebel kooto loogu xidho cid kale ma soo dejin karo dawladeena waxba kuma aha aqliyada taala hadda runta weey aqliyada taala dawladeena waxba kuma aha inay tiraado kabaha sandalka ah madmadow qof kaliya soo dejinay oo dadka kale dhan way ka xidhan yihiin marka nidaam dhaqaalo aynu qaadanay oo muuqdo oo toosi run ahaantii ma jiro marka ma doonayo inaan ka waqti fara badan geliyo welfare system ka isaguna kamida meelaha dawladdu ay dadka taagta daran dadka shaqada la dadka jilicda san ay xooga saartay in caawiso wax siiso ee dawladnimada ay mas'uuliyadda dareemayso waxbarashada bilaash ka dhigto caafimaadka bilaash ka dhigto dawladdu ay tahay dawlad keenan oo dadkeeda ilaalinayso oo keer garaynaysa taasna inaga Ilaahay wali nama seenin marka ma doonayo inaan inagu kaakiciyo way hadeen waxa ka sheekayno dawaynu xasaasadoonayna marka xasaasadda waxaan doonayaa reer Burcaan waxa ay xasaasad kululiyeen inaan xasaasadda ka ilaalin laakiin waxaan doonayaa inaan iyadana isdul taago waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda doonayso ummadima hore u socotaa ma dib bay u socotaa ma fadhiid baa way iska fadhidaa la eego waxa kamid ah hay'adaha dawliga iyo sida u shaqeeyaan iyo sida yihiin adduunku laba hab u isticmaalaa institutions waxa la yiraahdo institutionsku wax kale maaha waa ruleska iyo qawaaniinta in xukunta ee jaangoysa waxa hebel qabanayo sidoo uu qabanayo waa institutionska jaangooya inaad markaad baabuur wadato aad bixiso tax row soo leeyahay kama qaado cashuur baa leeyahay ka qaadaa institution baa go'aan ka gaadhay hab uu gaadhu leeyahay baarlamaan baa jira xeerar baa la sameeyaa marka institutionsku kuwa weyn marka institutionska noocaas sidee u shaqeeyaan taas aad iyo aad muhiim u ah laba nooc baa adduunku inta badan u badan yahay oo jira
labadan nooc mid waxa la yiraahdaa waa institutionska inclusive-ka ah. Institutionska inclusive-ki waxa weeyaan waa institutionska dhiirigeliya dadku inay tartamaan, talentkooda dadku inay ku tartamaan. qofku uu dadaalay haddii is og yahay maalintu dhasho inuu iskuul tago, iskuulka dhamaysto, jaamacad tago, markuu jaamacadda ka soo baxo aanu caaqil u baahanaynin, cid kale wax u baahanayn, talentkiisa iyo aqoontiisa iyo xirfadiisa uu u baahanayo oo ku shaqo tagayo. qofku hadduu taa og yahay dadaal badan buu gelaya. institutionska sidaa u shaqeeya ee talentka dhiirigeliya ee dadku inay tartamaan oo suuqu tartamo oo cid waliba tartanto ee aan cidna cid lugta u qaban, mid doqonoo ah saaxiib ahaydeen oo jaar ahaydeen oo weligii baan iskuul tegin oo aad taqaanay oo saaqid ahaayo inkaar qaba ahaa ayuunbaa maalinta dambe lagu odhanayaa meel heblaayo haystaa. ilaahay buu ku keenay waxaa ku wax ka helay dee caaqil hebel baa kaxeeyo halkaasaa la geeyey. hadda waa inankaagii fiicnaaye toddobada kici jiray, iskuulka tegi jiray, maalin walba shaqayn jiray, 12 sannadood soo dadaalayay ayuu saaqidkaa xumi dhaafay. sababtu wax kale maaha institutionskaynu haysanaan inclusive ahayn oo aanu qaabaysnayn oo u dhisnayn inay talentkaagan iyo kartidaadan iyo aqoontaadan iyo farsamadaadan ay tixgeliyaan oo ay eegaan oo ay ku shaqeeyaan. nooca kale institutionska ay jira adduunku innaguna aynu dabcan haysanaa waxaa la yiraahdaa waa institutionska extractive institution baa la yiraahdaa. extractive ereyga waxaa loo isticmaalaa Soomaali inta badan erey bixino badan oo Soomaali ma jiraan. marka haddaan Ingiriisi iyo waxa la yiraahdaa burca caanafintooga iyo aad u cabtaa maxaa la yiraahdaa marka caanafintooga magaciisa muxuu ahaa maanta la iga sheekeynay isku darka. markaa isku dar baan idin samaynayaa Ingiriisi iyo waxa la isugu darayaa Soomaaliga. extractive af Soomaali ma ku garanaya anigu ugu yaraan laakiin tiise waxa la isticmaalaa saliidda marka laga soo saarayo resourceska ayaa ereygu markiisa hore ka yimid. laakiin extractive institutions waxa weeye tusaale fiican baan idin siinaya si fiican ay ugu fahantaan. wasaaradaheena bal idinku waxa eegtaan hadda hadalkaa waan idin baryayaa baadha. wasaaraddeena gaadiidka kontraado fara badan bay bixisaa. wasaarado badan oo kale dalkeeniina kontraado badan bay bixiyaan. maanta wadadan Berberaan soo mara waxa la 15 kilomitir ba 15 kilomitir ba cid baa loo xidho qola ka shaqeynayso shirkad baa ka shaqeynaysa. haddaad baadhaan shirkadaha shirkad keliya oo aad garanaysaa inay ku yaraataa laga yaabo. waayo markuu qofku wasiir noqdo markaba hadda shirkad yar buu sameeyay xaaskiisu u dhiibay. institutionska noocaas weeyaan kuwa markaa inagu aan leen. markaa wasiirkii wuxuu samaysanayaa 5 shirkadood. shirkad xaaskiisa maamusha, shirkadna xabiibkiisu saaxiib inay isugu dhaweeyeen baa maamula, shirkad adeerkii baa maamula, shirkad mid kale oo ay si uun isugu xidhan yihiin baa maamula, shirkad mid agaasimaha oo xidhiid ka dhaxeeyo walaalkii baa u maamula. waxoo dhan waxaa la odhanayaa shirkadaha musiino laakiin percentage ka mid iyagu ku soo noqonaya. iyaga ayuu ku soo noqonaya. way nuugayaan de wasaaradii marka la nuugo way hagaasaysaa soo ma riba la yidhi ka xidhan nayshiya maxaa la yidhaha waxadaya ayaa laga xidha. haddii waxaad dunida la socota maxaa dhacaya way nuugaysaa markii kastaba soo ma wasaaradaheena waa la nuugaa. marka wasaarada nuugan aduu maxaad ku gaari bahashii oo ninkii haystay uu 10 magaco yar u samaystay. wasaarad walbana waa sida wasiirkaasi markuu ka tago shirkadahaasi kulligood meesha ka baxaan. ilaa ninkii samaystay baa meeshii ka tagay ma garanaysaa ka kale ee yimaadaan isna shirkado kale u samaystaa. waa sababta marka aad u arki weyday shirkadahana qaaday oo kontraadada ku tartama oo si fiican u shaqeeya oo maxaan ku dhahdaa meel maray oo marka contract la soo saaro competence ku tartamaya oo dabadeetana shaqada ugu quruxda badan ee ugu fiican qabanaya. shaqada maxaa haylay wadaa la sameynayaayo 3 bilood waad farxaysaayo 3 bilood kadib baad maraysaayo hoosta showga horay ahay waaba wada godba maxaa dhacay baad is weydiinaysaa
instruct waxa weeyaan waa extractive institutions ka weeyaan waa wada la nuugay iyo wasaarad la nuugay iyo shirkado wada nuugan wadankiina waa la nuugay marka xoolahan ay mudaydeen leena xaqay maraan meelahaasay maraan waa la nuugay laakiin inay institutions ka noocaas ay abuurmaan maxaa sababa waxa sababa oo kow ka ah waxa sababa markuu hogaamiyuhu yimaado laba waxa lagu dadaalaa waa hogaamiyaha